السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وورالكين سيمات وكما قاعد سيمات ترى وإذن سلامي درستي هرنا صاصعتي وحان صوبرني صلاة ديان صوبرني marka maadaama salaad aan soo baranay luq ahaan waxay tahay waan soo baranay sharac ahaan sharciga wuxuu markaas ku qow waan soo baranay iyo daliilkeedaba waan soo baranay iyo awqaadkeeda in lagu ilaaliyo marka maxaa ku xigo intaadan salaad galin goor maxaa u baahan tahay marka alwudu weesiya u baahan tahay marka maanta waxaan baranaynaa weesida insha Allah alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ma macna alwudu weesida maxay tahay marka weesida maxay tahay ayaa maanta baranaynaa macnaheeda iyo waxay tahay alwudu waxaa laga keenay horta min alwudaa وهي والحسن ووناك والبهجة والنظافة وانتاس بيسيدرتا وحليرا وانتاس نظافة نظافة حسني وحوناكسن كذلك مركا شرعا حق شرعية شرعهان مركي معنى هذه وأفعال مخصوصة وأفعال خاصة لي ولو خاصة لي نية طهارة وأفعال مخصوصة بنية الطهارة وإن لقاسي مركب بيهاس حمن كون ولا شيء إلى أعضاء المخصوصة مركا وحكمت أمريكا حمن كاس أعضاء المخصوصة تصل الشيء وبغسل الوجه وجه ندخو غسل اليدين سلق عمها بيسدوانا خانا مسح الرأس مضح إن لمسحه غسل الرجلين ويجب الوضوء على كل مسلم مركا وحين واجب كتهي مسلم كس أو عاقل بالغ كذلك ومسلمة والب أو عاقل أيضا أو بالغة أو أدنى إني لكن وحيال أو وحجر أو دمرك أكرديو سيدا حيدك يعني فاسك أو كلانتو حدي أو حيد أجوجو أما نفاس أجوجو رفع القلم وغير مكلف غير متكلفين كنيسة إن شاء الله مركا وحنوصل حاجة مركا كيف يحصل الوضوء سيدا لو حصلنا يا بيسي يحصل الوضوء هرتا بغسل الأعضاء التي ذكرت في آيات الكريمة كما بين في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلهي سبحانه وتعالى وحوليه فاغسلوا دقا وجوهكم وجهيني بأيديكم كعمهين إلى المرافق إلى ليجار حصله وامسحوا مسح برؤوسكم مذحين مسح وأرجلكم لجهين دقا وأرجلكم محي معضوف كتهي وأيديكم أي معضوف كتهي سببتها اللغة على ما مسحوا madaxan waxa lagu sheegay lugaha lama masaxo laakiin waxa la masaxaa madaxa la masaxaa ila alkacbayni wa arjulakum ila alkacbayni marka lugaan waxa la dhaqaa ilaa laga gaaro kacbaynka waana qana dad qof wuxuu u yaqaana sheek magac kacbaynka marka lugta meesh kuuska la yiraahdo oo qofka meesh ku ag كذلك مركا عيدا وحي إشاريسا إلى أعضاء التي يجب على المصلى أن يغسلها أو يمسحها عند إرادة الصلاة إن يعني وحي إشاريسا حمين مركز أو كمتا حمينك واجب كتاهي إنو ننك دكنايا أو دقا أما أو مسحه مركو دونايا صلاة إنو دكتو مركا haddii markaas oo la waayo oo biyahaas iyo la waayo ama tacadur imaado oo isticmaalkaas biyaha la isticmaalayo oo diidayo ayagana insha Allah waa xukun kale waaye waxa ka hadlaynaa sheek tayamumka markaan tayamumka hadalna ka bacdi ayaa salaada shuruudeedii iyo arkaanteedii markaasaan akhrineynaa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalayaal waxaan idin leeyahay walaalihiina gaarsiya say u sheer gareeyaan oo ayagana ay ugu faa'iideystaan kadalika adigan ajarkaagi waa ajar ayaa ku soconaayo maxaa yeelay rasuulku sallallahu alayhi wasallam addaal ala alkhayri ka faa'ilihi
ninka khayrka dadka tusa waxay la dhigantaa asigoo markaas ficilka sameeyey. Yacni ninkaas hadduu salaada ku hanuuniyo salaada oo dugto ajarka ninkaas oo leeyahay ayaa adigan leedahay, sababtoo adigaa marka hore tusay adigoon camalka sameynin ayaa marka akoon iska fur waa marka. Insha Allah baaraka allahu fiikum jazakum allahu khairan. sii share gareey like tin saar insha Allah, subscribe saar si kugu soo dhaco muuqaalka kale ka dambeeyo soo kugu soo dhaco insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.